السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو داود برنامج كان بولوود كمان تنقصو قادم دونو قضباء مهمة la daawan doonaa faran dhuban iyo saara ali qan filimkooda kooli number 1 wax badan ayaa la sugayay in waqti loo qabto xilliga la daawan doono filimkii xiisaha lahaa ee kooli number 1 kaasoo ay hogaamiyaal ka yihiin faran dhuban iyo saara ali qan filimkan markii hore qorshaha wuxuu ahaa in la daawado kooda May 2020 bal waliba tiyaatarada la saaro balse COVID-19 awgii filimkan oo dhan dib ayaa loo dhigay waxaana jireen warar sheega in qaab online ah loo daawan doono haddeer wararka soo baxaya waxay sheegayaan in mashruucan la daawan doono 13 November waana inta diwaaliga lagu jeedo waliba qaab online ah ayaa loo daawan doonaa ayadoo laga daawan doono shabakada Amazon Prime filimkan waxaa agaasime ka ah David Dowan oo qaybtii hore originalka ah isaga ayaa sameeyay waana dib u sameyntii filimkii kooli number 1 ay ku xarakayeen Govinda iyo Karishma Kapoor su'aasha waxay tahay kabihii xidigii hore Govinda iyo Karishma Kapoor ma gashan karaan kuwa cusub faran dhuban iyo saara waxaan sugnaa waa 13 November iyo bandhiga ay sameyn doonaan jilayaasha kaajal waqti wanaagsan ayay ku jiraan jilayaasha Bollywoodka maxaa yeelay jilaa walba filimka uu jecel yahay ayuu sameeyaa atirishada weyn ee Bollywoodka kaajal ayaa waxay daaha ka qaaday inay waqti wanaagsan ku jiraan jilayaasha haatan ee Bollywoodka maadaama ay haystaan taageerayaal u jidbaysan kuwaasoo doonaya inay aflaamtooda doorar kala duwan ku jiraan mar walba magaca kaajal oo aad maqashaa wuxuu ka dhigan yahay inaad soo xasuusanayso guulihii ay ku hogaamisay aflaamtii kujo hotaha iyo My Name is Khan balse kaajal waxay daaha ka qaaday in jilayaasha Bollywoodka aysan doonayn inay ciyaaraan doorarkaas oo kale kaajal ayaa tiri kama hadli doono kiiska Padmavati laakiin waxaan u maleynayaa in aysan waqti adag ku jirin jilayaasha Bollywoodka waqtigan maxaa yeelay jilaa walba wuxuu haystaa waqti ku habboon wuxuuna sameeyaa doorka filim ee sida ku habboon uuna ka helo waa sababta aad u arkayso jilayaal dhalinyaro ah oo aflaamtooda ku jilaya inay doqowshin yihiin cagsi ah sababta maxay tahay taageerayaasha ayaa diyaar u ah inay aqbalaan waa waqti fantastic ah maxaa yeelay jilayaasha waxay helaan nooca filim ay rabaan mar walba Deepika oo lagu soo eedeeyay inay daroogo isticmaasho iyo xaalka oo meel xun maraya atirishadana caanka Deepika ayaa lagu eedeeyay inay daroogo isticmaasho si kasta ahaatee caddeyn kama dambays ah wali lama helin balse si weyn ayaa sheekadan loo faafiyay saacadihii u dambeeyeen qolada qaabilsan baarista daroogada ayaa si weyn booliska ugu dhex baarayaan kiisas daroogo arrinkan ayaa bilowday kadib markii la ogaaday in Sushant Singh Rajput iyo Reha Chakraborty inay daroogo isticmaali jireen kadib Reha magacyo caan ah ayaa lagu eedeeyay isticmaalka daroogada iyo in wax laga weydiiyo kiiska Sushant Singh Rajput Rakul Preet Singh Sharada Kapoor iyo Sara Ali Khan iyo iyaga oo dhawaan laga yaab in su'aal la weydiiyo iyadoo sheekada halkaas marayso waxaa haddeer lagu dhagan yahay ama baraha bulshada lagu jafayo atirishada caanka ay Deepika taasoo la sheegay inay daroogo isticmaasho ama isticmaali jirtay waxaa la helay qoraal ay Deepika ku codsanayso in daroogo loo keeno waxayna ka dalbanaysaa haweeneyda Karishma lagu magacaabo ee iyada ka ganacsan jirtay daroogada haddaba Deepika ayaa laga sheekiyay inay daroogo isticmaasho qoraalkan wuxuu ahaa 2017 waxaa macquul in Deepika loo yeero si su'aal loogu weydiiyo arrinkaas intaas aan ku celiyo daawadayaal meeshaas intaas marka laga soo tago waxaa jiro muuqaal 2019 la faafiyay oo xidigtan caanka ah xidigo caan ah ka soo muuqdeen sida Karan Johar, Ranbir Kapoor, Deepika, Farhan Dhawan, Malika Arora, Arjun Kapoor iyo Vicky Gulshan kuwaasoo guriga Karan xaflad ka jirtay lagu sheegay inay daroogo ku dhex isticmaalayeen Bollywoodka oo ceeb weyn dhexda kaga jiraan iyo kiisas daroogada oo soo badanaya bal aan sugno shakhsiyaadka la eedeeyay haddii ay caddeemo lagu heli doono iyo haddii kale inta badan dadka mucaaradka iyo naceebka u qabaan jilayaasha ayaa wararkan faafinaya iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda waqtigan Bollywoodka ka dhex jirto halkaas inoo oga barnaamijkan hadday tahay fadlan markii kugu horeysay fadlan subscribe saar channelka Rukumo